Laba nin oo kala beddeshay xaasaskoodii kadib markii midba midda kale uu ka helay isla markaana ay cajabisay. Labadan nin oo daris saaxiibo ah isla markaana ku nool xaafad ku taalla magaalada Bursa ee dhacda xuduudda Kenya ay la wadaagto waddanka Uganda ayaa waxa ay sameeyeen fal aad kaga yaabiyay bulshada waddanka Kenya, wadamada Afrika iyo bulshada caalamkaba. Labadan nin oo lagu kala magacaabo Christopher Ouma iyo Kelly Mbaraza ayaa waxay horey u guursadeen xaasaskoodii hore oo ay dhammaan ka soo qayb galeen bulshada deegaanka guurkooda, waxaana labadooda xaasaskii ay qabeen ay u kala dhaleen carruur ay aabbo u yihiin, waqti adagna ay soo wada qaateen isla markaana ay soo mareen. Balse kadib markii ay muddo ku dhow 10 sano ay xaasaskoodii wada joogeen, nolol fiicanna ay dhex martay, ayaa mid waliba ka xiisa dhacay gabadha uu qabay ee carruurta u haysay, taasi oo keentay in raggan ay guryahooda nacaan, muranku uu bato iyo dagaal joogto ah oo xaafadihii ka yimid. Kelly Mbaraza oo ka xanaaqsan marar badan in xaaskiisu ay adeeci weysay marka ay marti imaatana aysan soo dhoweynin, ayaa waxa uu la dagaalay xaaskiisii Immaculate Nagiza, waxa ayna noqotay isla wareegto habeen iyo maalin mararka qaar maqan. Balse Kelly oo ahaa nin adag ayaa ku wargeliyay in uu isaga tagayo Immaculate, iyada iyo carruurta ay u dhashayba, waxa uuna xiriir hoose markaasi kala dhexeeyay Lilian Weta oo ah xaaska saaxiibkiisa. Lilian Weta oo ka warqabtay waxa dhacay ayaa saygeedii hore Christopher la wadaagtay in Kelly uu xaaskiisii furay, taasi oo durbaba Christopher damac ka galay Immaculate Nagiza oo saaxiibkiisu uu furay. Christopher oo xogta hayay in naagtiisa Kelly ay wax ka dhexeeyaan ayaa u furay maadaama ay rag saaxiibo yihiin, isaguna waxa uu go'aansaday sidii uu kula wareegi lahaa Immaculate Nagiza oo saaxiibkiisu furay. Lilian Weta durba markii la furay waxaa guursaday oo guri geystay Kelly Mbaraza iyadoo isku faraxsan maadaama ay muddo isgaadgaadayeen iyada oo la qabo. Immaculate oo xogta guurka saaxiibkeed hore maqashay ayaa waxa ay kulmeen Christopher oo markaasi u soo bandhigay in uu ka helay isla markaana uu doonayo inuu guursado, waxayna ku xirtay hal shuruud oo ahayd in uu ilmaha la korinayo, taasina waa uu aqbalay isla markaana uu sidaasi ku guursaday. Hadda Christopher waxa uu qabaa isla markaana guriga u joogtaa saaxiibkiis xaaskiisii, halka Kelly uu isna qabo xaajiyadii hore ee saaxiibkiis Christopher. Arrintan ayaana la yaab ku noqotay bulshada caalamka, kuwaasoo ay ka mid yihiin dadka aadka u isticmaala baraha bulshada oo muddooyinkii dambe la soo dhaafay baraha bulshada arrintan wareejinayay.